kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba meel waliba dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada warbixin aan kaga hadli doono UEFA oo shaacisay isbedelo muhiim ah oo ay ku sameysay shuruucda Champions League iyo Europa League maxay ka yiraahdeen tababarayaasha English Premier League warbixintan ayaan dul istaagaynaa balse inta aan ugu gudagelin warbixinta waxaan idinka codsanayaa inaad like saartaan muuqaalka si saaxiibo kale uu gaaro share dheh aragtidaadana ka dhiibo UEFA ayaa ku dhawaaqday in la dhaqan geliyo shuruuc cusub oo xilciyaareedkan lagu ciyaari doono tartamada Champions League iyo Europa League kuwaas oo ay ku qasban yihiin inay u hoggaansamaan dhammaan kooxaha ka qayb galaya tartamadani. Sharcigan oo aan dalalka ku qasbaneen inay horyaaladooda ka hirgeliyaan waxay kooxuhu hore ugu soo arkeen qaybtii dambe xilciyaareedka waxayna dani ugu jirtay ciyaartoyda oo laga ilaalinayo in dhaawacyo ay soo gaaraan maadaama aanan muddo 4 bilood ah tababar qaadanin oo ay guryahooda ay ku xariisnaayeen sabab la xiriira caabuqa safmarka ee coronavirus. Horyaalada waaweyn ee Europe oo lagu daray Champions League iyo Europa League ayaa markii dib loo bilaabay bishii June waxaa la dhaqan geliyay sharci ogolaanayay inay koox waliba ay sameyn karto 5 bedel taasoo lagu ilaalinayo badqabka ciyaartoyda laakiin xilciyaareedka hadda bilaabmay ayuu sharcigaasi meesha ka baxay maadaama ciyaartoyda tam ay soo noqdeen. xiriirka kubadda cagta Europe ee UEFA ayaa si buuxda ugu dhawaaqay in sharcigan 5 bedel uu sii shaqeyn doono xilciyaareedkan cusub oo koox walba ay u fasaxan yihiin inay 5 bedel ay sameyso inta ciyaartay socoto. sharcigan oo Premier League uu cod duuduub ah ku diiday in lagu ciyaaro ayaa waxay naadiyada Ingiriisku kaliya ku dhaqmi doonaan markay ciyaarayaan Champions League iyo waliba Europa League balse gudaha dalkaasi ayuuna ka shaqeyn doonin. tababarayaasha kooxaha Ingiriiska iyo kuwa kale ee dalalka kale ayaa soo dhaweeyay in UEFA ay ogolaatay in 5 bedel la sameeyo xilciyaareedka cusub ee 2020-2021 halkii ay ka ahaan lahaayeen 3 bedel oo kaliya. Frank Lampard ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in ciyaartoyda ay helaan nasasho si ay ugu ciyaaraan heerka iyo tayada Premier League sidaas oo kale Jose Mourinho ayaa xusay inuu soo dhaweynayo oo aan waxba ka qabin. ciyaartoyda waxay u baahan yihiin inay helaan nasasho si ay ugu ciyaaraan heerka iyo tayada Premier League ayuu yiri Frank Lampard oo ah maamulaha waqtigan ee Chelsea. sidoo kale Jose Mourinho oo tababaro ah kooxda Tottenham Hotspur ayaa isaguna yiri 5 bedel anigu waxba kama qabo inta badan ciyaaraha anigu shakhsi ahaan waxa aan dareemayaa in aan loo baahnayn laakiin hal arrin ayaan baahi ahayn arrin kale fursad ma aha sidaas daraadeed haddii aad hesho fursad aad ku sameynayso ilama ah inay dhibaato tahay sababtoo ah waxa kaliya oo la sameyn karaa 3 xilli ciyaartana ma saameynayso waqtigeeda caadiga ah balse tababarayaashu 5 jeer ma joojin karaan ciyaarta waxay ila tahay in wax fiican ay tahay. Pep Guardiola ayaa isaguna hore caro ugu muujiyay in horyaalka Premier League uu ogolaan waayo in 5 bedel la sameeyo waxaana uu soo jeediyay in ciyaartoyda u baahan yihiin in nasiino la siiyo oo 5 bedel ay kooxo ay sameeyaan 3 maalmood ee kasta waxaa la ciyaarayaa kulamo lama ilaalinayo ciyaartoyda waxaynu u baahannahay inaynu shaqadeena dhowrsano sidoo kale ilaalino ciyaartoyda 5 bedel waxay ilaalinaysaa badqabka ciyaartoyda ayuu yiri tababaraha kooxda Manchester City iyo xulka Spain Pep Guardiola. in UEFA 5 bedel ay sii wada oo tartamadeeda lagu ciyaaro adigu sidee u aragtaa horyaalka English Premier League-na haddii laga hirgeliyo maxaa isbedeli kara?